xasan aadan xasan maxamed waxaa la weydiinayaa jiritaanka eed ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida uu ka jeediyey fadhiga maxkamadda gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute. xasan waxaa lagugu eedeynayaa in aad si bareer ah u dishay marxuumiinta kale ah madiino cabdulaahi cabdi iyo xasan cali cadaawe taariikhdu markay ahayd 24 bishii afraad 2020 dembigaas oo ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. jawaab celinta eedeysanaha maxkamadda hortaagan kadib waxaa la gudagalay dhageysiga marqaatiyaal ay ku jiraan dad shacab ah iyo askartii la howlgalaysay iyo baarihii kiiska. cabdiraxmaan nuur maxamed fiqi oo uga wakiil ahaa laanta baarista booliiska CID kiiskan ayaa maxkamadda u sheegay in si ku talagal ah nolosha loo dhaafiyay xasan cali cadaawe iyo madiina cabdulaahi cabdi bilowgii Ramadaan habeenkii ugu horeeyay afurka daqiiqado ka hor inta uusan bilaaban xilliga bandowga ah. marka marxuumka dhakhtarkii warqadii rijarta moortada waxaa ku qoran in dhaawaca badeed uu ka soo gaaray garabka iyo feeraha. qof qoraysaan kuula qabsaday xabadda saan ugu madhicleen sida waxa ay baariyaasha iyo qolada waxa ay crime investigationka ay khibradooda bataaba. marka goobtii waxaa ku noolaa dad aad u danyara hataa oo in hub loo adeegsado aysan aad ahaan u fiicneen oo xarooda kaliya ku filneed. marka eedeysanaha wuxuu isticmaalay awoodiisa wuxuu xabad si bareer ah ugu dhuftay marxuumka waxayna ugu sii gudubtay marxuumadda oo waliba cunug yariisa oo dhashay oo umul ku jira cunug yar waa soo aragnay waan soo sawarnay waan soo diyaarinay galkiisa iyo warbixintiisa ilaa hadda xaalad aad u liidata ayuu ku sugan yahay cunugaas. xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda la wadaagay cadeemaha dambi muujinta sida warqadda cadeynta dhimashada marxuumiinta oo aysan ka muuqan taxadir habka isticmaalka hubka ah sida isticmaalka xabad afsaar ah. jenaraal cabdulaahi buule kamey xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa weydiistay maxkamadda in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ku xusan ee dooda. ammaanka oo u furan inuu la galo qoray xabadii dhuunta saaranta horta qaladka koowaad bay tii labaad sida dhakhtarku soo cadeeyay iyo sawirka marxuumka saad ka arkayso xabadu meesha ay qofka ka galayso way yartaa meesha ka baxaysaa weyn laakiin marxuumka meesha ka gashay way weyn sababtoo qoriga afsaar buu ahaa afsaar buu u saaray wadnaha uga saaray sidaa darteed maadaama uu dil bareer ah u dilay marxuumka waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka quraanka iyo qodobada aan ku soo eedeynay oo ah dil toogasho ah. qareenada u doodaya eedeysanayaasha ayaa maxkamadda weydiistay in la saaro magta askariga taliska booliiska maadaama uu fulinaya amarka taliyaha booliiska ee ahaa kala fogeynta dadka si looga taxadiro caabuqa coronavirus oo xilliga dhacdada lahaa saameyn aad u xoogan 24 abriil sanadkan. ma bayskareysna ma saarna micnaha qodobka ah oo la kac marka ma la saari karo waxaan maxkamadda ka codsanaynaa maadaama qodobkaasi aan la saari karin in xasan loo fiiriyo qodobka 445 isla markaasna la dul saaro ciidankii qaranka Soomaaliyeed ee shaqada u igmaday. madda ficil dhigaasi laga daayo waxaan leenahay wasaaradda amniga qaranka iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ha lagu xukumo ninkan miskiinkana shaqadii qaranka ee taliyaha ciidanka booliiska oo saddexda habeen ku xigta oo ka hadlayay ayuu haye. gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoonka fadhiga ayaa soo xiray garmaqalka eedda ka dhanka eedeysana xasan aadan xasan maxamed oo ka tirsanaa saldhigga booliiska Boondheere. dhageysiga dacwada lidka ku ahayd eedeysana xasan aadan xasan intaas ayay ku dhameystiran tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.